waa mid ka mid ah xafladaha ugu ballaaran oo dhalinyaro waqti adag wax ku soo bartay ay qaadanayaan waqtigooda farxadda iyadoo ay waalidiin dhabar adeeg u soo muujiyay in ay dhallaankoodu wax bartaanna ay damaashaadka kala qayb qaadanayaan ku dhawaad 1,000 arday oo ka qalin jebisay jaamacadda Plasma ee magaalada Muqdisho ayaa maanta loo qabtay xaflad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir maamulka sare ee jaamacadda waalidiinta bahda waxbarashada iyo marti sharaf kale oo asxaab la ah qalinjabiyaasha waalidiinta ka qayb galay xafladda qalinjabinta oo ka hadlay goobta ayaa muujiyay sida ay uga guun gaareen dadaalkoodii ahaa in ay ubadkoodu wax bartaan oo ay wax taraan dalkooda gudoomiyaha jaamacadda Plasma mudane Xasan Maxamed Xasan ayaa sheegay in jaamacaddu ay dadaal xoog leh ku bixisay inay soo saarto mustaqbalka dalka isla markaana waxa uu kula dardaarmay ardayda qalin jabinaysa in ay qayb ka noqdaan horumarinta dalka ina jaamacaddiini muuqaalkeeda meesha tagtaan laga arko waxa aan sheegayna practicadooda in la arko inta ayaan rabaa inaan ardayda ku ekeeyo mas'uuliyiinta kale iyo ummadda qaybadeeda kale waxaan leenahay yani insha Allah aan ka qayb qaadano horumarinta dalka aan ka qayb qaadano wanaajinta ummadda maalinba meel uu dalkan ku soo hooyanaya gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Banaadir ee arrimaha bulshada Cabdullaahi Cilmi Erek ayaa waxa uu markaasi bogaadiyay tirada ardayda qalin jebisay waxaana uu ku tilmaamay in ay tahay mid muujinaysa wajiga quruxda iyo horumarka leh ee gobolka Banaadir guddoonkeena sare ee gobolka Banaadir ee uu hogaamiyo gudoomiye Taabid waxaan naga go'aan inaan idin heelino idinkuguna heelino garashadiina waxa aan ku hadlayno dhan waa cabasho ka timid dhalinyarada Soomaaliyeed ee loodkiina ah haddaan la fariisano waxay ka cawdaan noloshii ay ku soo koreen iyo qaabka ay yihiin waxaan ognahay inaad diyaar u tihiin inaad waddankana badbaadsataan dadkiinana badbaadisaan qaar ka mid ah ardayda qalin jabinaysa oo aanu la hadalnay ayaa muujiyay sida ay farxad weyn ugu tahay in ay soo gaareen haatan yoolkoodii ay ku haminayeen muddadii 4 sano ahayd ee la soo dhaafay Axmed Alkaahi aad mahadsan tahay waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan qalin jabintayda ay maanta dhacdo muddo 4 sano waxaan ku taamayay ama aan ku fikirayay in maanta miro dhalkeedii ayaan qayb ka mid ah aan arko aad u faraxsanaa maanta dareenkayga ma la soo koobi karo muddo 4 sano ah dadaal aan waday aan maanta xaqiijiyay aad aan u faraxsanahay kaaye waxaan u mahad celinayaa waalidkay intaan isoo garab taagnay alxamdulillah waan faraxsanahay dareenkayga ma la qiyaasi karo wax 4 years u soo fadhiyay maanta waa soo dhameeyay dadka qaar 6 years ay soo fadhiyeen alxamdulillah ma hadas ilaaha iskale kasoo waalidiintayda iskale waa faraxsanahay waxay ii tahay farxad gaar ahaaneed waxay ii tahay farxadan la soo koobi karin waalidiintaydii saaxiibaday macallimiinta bahdayda saxaafadda naftirkooda waxay u tahay guul oo tiim badan oo saxaafadii ka mid ah isla qalin jabinayno anigii aan ka mid ahay waxay taasi muujinaysaa in aqoontii wariyaasha ay sare u qaadmayso raxmad ilaahay asaale dan waxa mahad weyn leh adeerkayga qaaliga Cabdullaahi Faarax runtii ina guushan gaaro iyo dadaalkan iyo juhdigan iyo taamkan dhiirigelin wanaagsan mar walba garab igu siiyay